baarlamaanka galmudug oo 20 maalmood oo xiriir kooram la'aan awgii u kulmi waayay ayaa maanta u madlanka doodista laba ajende oo 3 jeer oo hore xubnaha lagu ogeysiyay fariin gudoomiyuhu u diray balse in ka badan laba u dhig tirada guud ee xildhibaanadu diideen inay tagaan fadhiyadaasi maadaama uu jiray khilaaf ka dhaxeeyay xildhibaanada iyo gudoomiyaha golaha oo isku maandhaafay habka loo maray ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka oo xildhibaanadu badi ay sheegeen in gudoomiyaha gacal ka been sheegay xaqiiqada codeynta xildhibaanada maalmahaasi buuq ka dhex jiray golaha ayuu gudoomiyuhu isku dayay adeegsiga dhowr xeeladood oo midoodna aysan xal u noqon caqabadaha jiray gacal ayaa dhamaadkii bishii hore ka dalbaday madaxweyne qoorqoor inuu arrintan soo farageliyo balse madaxweynuhu taa uu ka gaabsaday waxaana markaa kadib bilowday fadhiyo gudoomiyuhu ku doonayay inuu ku joojiyo abaabulka isaga ka dhanka ah isagoo xildhibaanada badi uu goodiyay inay weyn doonaan xubinimada golaha oo aan kaarka aqoonsiga la siin doonin September kadib maadaama ay sii dhacayaan kaararkii hore waxaa kale oo la wariyay in gudoomiyuhu isku dayay adeegsiga awood ciidan isagoo dalbaday ciidamo ka tirsan kuwa haramcad si ay u baqdin geliyaan xubnaha ka soo horjeeda oo ay suuragal ahayd inay kulamadan buuq ka dhex dhaliyaan hadiiba ay dhacdo inay tagaan howlka baarlamaanka qabsoomid la'aanta fadhiyada baarlamaanka oo dad badan u cuskadeen fashil uu wajihi karo gudoomiyaha golaha ayaa gudoomiyaha gacal ku qasbay inuu xalay ogolaado ka tanaasulida doodiisii ahayd inuu dhaqan galay xeerka muranka dhaliyay ee baarlamaanka kadib shir saacada qaatay oo saqdiga dhexe ay wada qaateen xildhibaanada ka soo horjeeda kuwaasi oo ku adkaystay in aysan tagi doonin kulanka maanta hadii gudoomiyuhu laali waayo sharcigan dooda maanta ee baarlamaanka ayaa noqon doonta ansixinta muddada kaarka aqoonsiga xildhibaanka iyo ansixinta habraaca fasaxa xildhibaanada isla kulanka maanta ayaa gudoomiye gacal oo fulinaya heshiiskii uu la galay xildhibaanada kaga dhawaaqi doona in uu laalay xeer hoosaadkii golaha ee uu sheegay in xildhibaanadu u codeeyeen bartamaha bishii hore qaadashada go'aankan oo ku soo beegmay xilli gudoomiyuhu ka cabsi qabay in mooshin lagu tuuro ayaa ka dhigan inuu helay fursad uu ku hakiyo weeraro culus oo ku soo wajahnaa walow aan la ogeyn in heshiiskani noqon doono mid waaraya waana xilli ay jiraan hadal hayno muujinaya is-ogolaanshaha dhinacyadani inay yihiin kuwa ay ku wada qasbanaadeen maadaama la geliyay xilli doorasho tan labaadna aysan joogin caasimadda labadii gudoomiye ku xigeen oo dhowr bilood ku maqan safar dibadda ah xildhibaanada dhaliilsan hogaaminta gudoomiyaha gacal ayaa ku eedeeya inuu yahay shakhsi isku kooba awoodaha oo dhan oo aan ogoleen muuqashada ku xigeenadiisa saxaafadda oo golaha oo u diidanaa gudoomiyuhu tan iyo markii xilkan loo doortay iyo in uu yahay shakhsi ugu hanjabay xildhibaanada in uu dhaafinayo kursiga hadii uu muujiyo xildhibaanku fikir ka duwankiisa Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb